بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والله waxa rabaa in la wadaago mid kamid ah xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam diskan mawduuciisana waxa weeyaan laqab wanaagsan ama xusn khulqiga ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتمري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. رسولك عليه الصلاة والسلام leeyahay anigu waxa la soo saaray inaan qamaystiro akhlaaq wanaagsan ama inaan hagaajiyo ama aan toosiyo akhlaaq wanaagsan. ذلك walaalayaal akhlaaq wanaagsan qiimaha qofku leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay waa min shay asbar fi miizaan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn khuluq. qofka mu'minka shay ugu culus ma jirto maalinta qiyaamo akhlaaq wanaagsan. walaalayaal akhlaaq wanaagsan qofka mu'minka maanta waxay sabab u gelaysaa inuu janno ku galo. laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey maashi dadka wax badan ay jannada ku galaan rasuulka ilaahay waxaa kamid ah wuxuu yiri taqwa allahi wa husn khuluq. ذلك walaalayaal waxaan ku ducaysanayna mar walba ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. لا هي صدق معنا أو سيد وهجاجسي أخلاقنا وهجاجي. وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.